السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي ku xidhan page-kayga ku dayo channel aad baan idin salaamay marka hore salaan kadib waxaan maanta rabaa inaan message halkan idinka soo gudbiyo kaas oo ay ku farxi doonaan hablaheena Soomaaliyeed sidoo kale ragga xushmada iyo qadarinta u hayaan hablaha ay aad ugu farxi doonaan waxaan barnaamijkan maanta si gaar ah uga hadlaynaa hablaheena Soomaaliyeed sidee bay ugu guuleysan karaan jacaylkooda iyo mustaqbalkooda isku soo noqod wacan oo wanaagsan akhyaarta haddii aan ku sii socono barnaamijkeena sidaan wada ogsoonahay gabadh kasta waxay niyadda ku haysaa mar walba inay hesho qofka ay jeceshahay haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa ka hortaagan gabadh kasta inay hesho ninka ay la sheekaysanayso qaar ayaa ku odhanaya calaf iyo qoraal way jiraan taasi qof walbana uu aaminsan yahay balse ilaahay wax walba sabab la'aan ma uusan samaynin tallaabo qaad ta kalena aniga ayaa kugu daraya ayuu yidhi Allah subxaanahu wa tacaala haddaba marba hadday sidaa tahay maxaa ka hortaagan gabadha inay hesho qofka ay la sheekaysanayso ama ay jeceshahay waqtiyadii hore jacaylku wuxuu ahaa mid qiimo iyo qadarinba leh labada qof ee isjecel waxay ahaayeen kuwa nolosha rajo ka leh mar walbana isgarab jooga waxaana adkayd inaad ogaato qof wax jecel oo xataa haddii ruuxa aad walaalaha tihiin qof jecel yahay maadan ogaan karayn sababtoo ah jacaylkiisu wuxuu ahaa mid ku qarsoon qalbigiisa amase qalbigeeda waxa intaasi dheeraa bulshada oo dhani maysan wada ahayn kuwa wax jecel balse jacaylka imika waqtigan aan taagannahay zamankan aan ku jirno hadda ee ay bulshadu baratay social mediaha jacaylkii wuxuu noqday mid aan qiimo iyo qadarinba toona lahayn iska badaa inuu qiimo iyo qadarin yeeshee waxa hoos u dhacay sharafta iyo karaamadii uu lahaa wuxuuna noqday oo keliya dibnaha waan ku jecelahay anaa kaa daran taasoo sababtay inay qalbiyo badani dhaawacmaan haddaba muhiimadda message-ka ayaa ah sideen u maarayn karaynaa qalbiyadan dhaawacmaya ha u badato hablaheena Soomaaliyeed waxaan rabaa in 3 qodob aan la wadaago hablaheena Soomaaliyeed waxaanan hubaa haddii ay qaataan qodobadaas kuna dhaqmaan in ay ku guuleysanayaan isla markaana ay hananayaan qofka ay la sheekaysanayaan anu xaqiiqdii ma jeclin inaan arko gabadh qalbi jabsan waayo mar waa hooyooyinkeen marna waa walaaliheen mar waa baxaaskeenna marna waa caruurteenna halkan waxaan ku hayaa 3 qodob oo aan isleeyahay haddii ay habluhu sideeda ugu dhaqmaan waxay helayaan mustaqbal iyo rajo ifaysa qodobka koobaad waxa uu leeyahay dhinaca kulanka siiba gaar ahaan habeenka la kulmayo horta anu waxaan hablaha dhihi lahaa habeen ha la kulminin rag waxaa jira qasba hablaha kadib markay ogaadaan inay jeceshahay gabadhu sidaas ayayna uga faa'iidaystaan laakiinse waxaa jira xadiis uu nabigu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam in isla kaliyoobin wiil iyo gabadh isgeeya dadka qaar waxay ku oranayaan waa xadiis وفيعن يهينا لقاطو بكودنا لكن سي حديثك نبي عليه الصلاه والسلام او جدي حكمه ايا كجرا حديث هانا او ايغين بهورتا حكمتها كجرا هان كير دخدونا بل حكمه بدن ايا كجرا حقيقدي gabadhu haday ku asturnaato xaafadooda oo ay ninka ay la kulmi weydo habeen ama ay kula kulmi weydo meel bulsho badan ay arkayn halkaas waxay ka helaysaa waxyaabo badan runtii xigmado badan ayaa ku jira kow inuu ninku waxba ka sheegi kari waayo gabadha sidoo uga sheegi kari waaya haddii uu wax ka sheego waxay noqonaysaa wanaag oo kaliya xigmadda labaad ay ku dhex jirtaa bulshada ayaad ku dhex noqonaysaa qof sharaf leh u fiirso gabadhu wallahi hadday ku dhex dowrsanaato xaafadooda kow waxay noqonaysaa gabadh sharaf leh bulshada oo dhan farta ay ku wada fiiqaysaa nin kasta wuxuu ku haminayaa sideed gabadha ku heshaa adiga ahaan gabadha waxa kuu badbaadaya naftaadii iyo waliba sidoo kale jirkaagii tamaad baadan ku soo qaata tusaale ahaan tamaad xabuubku marka uu yar yahay ee uu cas yahay ee uu qurux badan yahay qof waliba uu jecel yahay qof wali wuxuu doonaa inuu isagu isticmaalo oo fiirso haddii faraha lagu badiyo tamaad xabuubkaas qaarac buu noqonayaa oo qof walba nacay ayuu noqonayaa gabadhuna waa saa kale marka ay ninka ay la kulanto ay farahu ku bataan ninkan uu ka sheekaynayaa halkaas maxaa ka dhalanaya waxa halkaas ka dhalanaysa inuu yiraahdo war timaadkan qaarac buu iga noqday timaad yar oo kale cusub ma ay soo raadisid ninku gabadh kale iska raadsanaa waayo macaankaagii oo dhan uu dhadhamiyay mustaqbalkaaga muxuu ku falayaa qodobka labaad haddii aan u galo qodobkii koobaad wuxuu ahaa habeen ha la kulmin wiil qodobka labaad ee aan isleeyahay gabadhu haddii ay qaadato way ku liibaanaysaa mustaqbal wanaagsan oo ifayaan way helaysaa waxa uu yahay dhinaca salaanta anu waxaan ku dhihi lahaa gabadhay wiilka aad la sheekaysanaysid aad jeceshahay 100% maad jeclaatida ha salaamin salaanta gacanta ha ka qaadin gabadh kasta waxay isleedahay san u salaamin waan jeclahay nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wiilku intuu gabadh salaami lahaa ama gabadh wiil salaami lahayd waxa uu dhaantay isagoo gacantiisa dab ku qabta xigmadaha ku jira maxay yihiin tusaalaan dhalinyarteena baan soo qaadanaba inaan meel kale taginba marka aan fadhino dariiqa gabadha hadayna soo marto tusaale ahaan aan garanayno ama mid kamid ay garanayso gabadhaas hadii ay gabadhina diinta ku adadag oo iska fiican aysan ahayn gabadheenu way fiican yihiin laakiinse gabadh iimaankeedu yar naaqusay haduu yahay gabadhaasi mid kamid ay salaamaysaa way salaami way wada salaami kadib kii ay garanaysay la qosqosli way la kaftami kolka socoto mid naga mid ah asxaabtii meesha wada fadhiday ayuu mid kamid oranaya war saaxiib qoftani way noqotay نهاني ما يقول سوى رجسد جوابتي كي كلام حورنا يا قبل الجيرانية
war waa caadi wallaahi da qofta waad heli karaysaaye adigu laakiin waxaad ismoodaysaa markaad la qosqoslaysid ee jijiidanaysid kadib si fudud baad kusoo gacan gashayba ninkan imaad igu wareejisid la mustaqbal ahaan ma wado laakiin wuxuu doonayaa wax waqti dhaafisa oo waqtigu isku dhaafiyo haddana anagu halkii uun fadhina tusaalahaan gabadha markays aanoo dhaaftan gabadh kalaa soo maraysa gabadhaas waa gabadh diin leh asturan foorarta maasha allah ayaa soo maraysa tusaalahaan qof naga mid ay garanaysaa salaamu calaykum wacalaykum salaam ma fiicantiin walaal si yaroo degan bay noo salaamaysaa wayna dhaafaysaa maasha allah kadib maxaa dhacaya annaka mid naga mida unbaa odhanaya sidii oo kale maasha allah waraa gabadhan wallaahi waa gabadh noqotay saax wallaahi haddii aan hayn lahaa jeebkayga hadduu maanta ii buuxi lahaa lama hadleen iyadii xaafidoodan ka doonan lahaa waxa isbedelay waa dabeecadda weeyaan dabeecadda ayaa qofkii bedeshay qofkii ay la sheekaysanaysay ama ay jeclayd oo imanaysaa way salaamaysaa gacantay ku salaamaysaa maanta markay salaanto beritoole maxaa dhacaya ma garanaysaa abuu salaantan waan ku caajisay iga daayo habisi ama igu dheg buu ka leeyahay salaantu waa diirka ugu adag aad ku ilaashan karayso mustaqbalkaaga wanaagsan warma isku mid baa nin maanta aqalkiisa xabaddeera ku wareejiyey iyo leyse nin aqalkiisa 10 deera ku wareejiyey midkee buu tuuga hore ugu soo dhacaya gabadhaasaa kale deyrka 10aad aad ku xidhanaysid gurigaagaas waxa weeyaan salaanta xigmadaha ku jira maxay yihiin haddaba kow ninku inuu kaa baqo siduu kaaga baqayaa gabadhan salaantii kuu diiday haddii aad wax kale ula tegtid ayuu isleeyahay waa intaasay kaa tegto waayo uu ku jecel yahay xigmadda labaad ee ku jirta dhinaca salaanta inuu ninku ku aamino kalsooni ay ku dhalato wuxuu is odhanayaa ninku gabadha adiga ku salaami weyday sidee bay qofka loo salaamin qodobka saddexaad ee aan walaalayaal idin leeyahay waa muhiim waxa weeyaan qadarka gabadha waxaa looga baahan yahay inay ahaato gabadh qadarka aaminsan dhinaca kale waa inay dareensiiso ninka ay la sheekaysanayso in ay tahay gabadh qadarka aaminsan waa inuu ninku ka dareemo gabadhan inay gabadh qadarka aaminsan ay tahay faa'iidada iyo xikmadda ku jirta maxay tahay ninka kula sheekaysanaya kuguma cagajuglaynayo waan kaa tegay haddaba haddii aan intaas kaga soo gudbo qodobadii aadka u muhiimsanaa ee aan idiin soo diyaariyey ee ahaa 1 ha la kulmin wiil 2 ha salaamin 3 ninku waa inuu kaa dareemo ama aad dareensiisid inaad tahay gabadh qadarka aaminsan intaas kadib waxaa dhacaysa inuu wiilkii aad la sheekaysanaysay kaa cadhoodo waayo waxaan waa wax uu horey u soo bartay amaad adigu horey u soo bartay sidaa darteed gabadha maxaa looga baahan yahay gabadhu waa inay dareensiiso qofka ay la sheekaysanayso inay jeceshahay waa in ay dareensiiso inay u joogto isaga oo keliya waa inay ka farxiso cadhadan uu ka qaaday waxyaabahan waa in ay ugu beddesho farxad waa in ay awoodi karto inay ka tirtirto cadhadaas hadiyado qurux badan inay u soo keento kadib halkaas waxaa ka dhalanaya oo hubaal ah jacaylkii uu markii hore u qabay ee uu ku jeclaa inuu la kulmo inay salaanto mid aad uga badan inuu u qaadi doono kadib markuu kala kulmay waxyaabahan aadka u wanaagsan barnaamijkani intaas ayaan ku soo afmeeraynaa insha Allah waxaa ku xigi doona barnaamijyo kale oo aad u qurux badan idin xiiso geliyana haddii aad ka heshay walaal subscribe dheh kadibna gambaleelka furo si aad u noqotid barnaamijyada xiga qofka u horeeya ee uu soo galo share-na taabo si uu gaadho asxaabtaada kale ee aad la jeceshahay wanaagga commentin hoosta nagu reeb haddii ay jiraan waxyaabo aan qaladnay ama waxyaabo aan saxnay annaka waxay noo noqonaysaa dhiirigelin haddaba akhyaartaa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo barnaamijyo dambe oo xiiso leh